daawadayal wardegdega guud ahaan bariga dhexe waxaa ka socda dagaaladii aad moodo in dagaalkii saddexaad ee adduunka uu markaasi caawa bilowday walow dadka qaar ay qabaan inuu xilliyo hore bilowday balse waxaa jira in Iran ay ku dhawaad 500 oo gantaal ay u dirtay dhankaas iyo Israel maadaama ay dhawaan ay ku duqeysay xarunta Dimashq ee dalkaasi Suuriya haddaba caawa warbaahinta caalamka oo dhan waxay si live uga jirtaa Israel iyo sidoo kale Iran ayaa waxay wacad ku martay in ay Israel ay ka argudan doonto oo ay dhulka la simi doonto xarumaha dawladda ayna dili doonto hogaamiyaasha ugu sarreysa Israel haddaba dhacdadan waa dhacdooyin si weyn naxdin ugu leh markaas Israel waxayna mutaysan karaan cashar inkastoo Israel ay dabada ka fadhiyaan dalka Mareykanka iyo sidoo kale qaybo kamid ah Yurub walow iyada qudheeda Iran ay iyaguna dabada ka fadhiyaan Ruushka iyo sidoo kale wadamo kale sidaas si lamid ah waxa macquul ah in dagaalku uu halkan ka fido ku dhawaad 6 wadan ayaa waxay markaasi joojiyeen duulimaadyadii internationalka iyo sidoo kale kuwii localka waxay gabi ahaan xidheen isu socodka guud ahaan wadamada caalamka si gaar ah 4 wadan oo bariga dhexe ah sida Urdun, Ciraaq iyo sidoo kale qaybo Cumaan ayaa guud ahaanba markaasi la xidhay ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe jooga ayaa iyaga qudhoodu iyaguna heegan buuxa la geliyay warbaahinta Al Jazeera oo markaasi dhacdadan si weyn u falanqeynaysa ayaa waxay ku tilmaantay in newskani uu yahay newskii ugu khatarta badnaa ee 2024 iyo sidoo kale 15 sano ee ugu dambeeyay ay tabiyaan haddaba maxay ku biyo shuban doontaa ayaad u malaynaysaa saaxiibada qaalaha ee bartan oo ah markaasi TikTok-ta Cabdul Nadaar nagala socotay sidoo kale bogga Cabdul Nadaar Facebook sidoo kale warbaahinta YouTube-ka ee Hogol News waxaan si guud aan halkan soo gelin doonaa saacadaha soo socda haddii alla ka dhigo wararka la xiriira gantaalada halista badan ee diyaaradda shahiid lagu magacaabo 136 iyo sidoo kale diyaaradaha ay iyaduna Israel ay kaga hortagayso Iran diyaaradaha F-35 oo markaasi Mareykanka uu laga leeyahay ay soo dirtay dhankan iyo Israel haddaba caawa bariga dhexe si weyn ayuu qasan yahay haddii aad la socon weydo wararkana waxaa macquul ah in goobta aad joogto uu kugu yimaado dagaalku waa mahadsantahay saaxiibayaal si aad la socotaan wararka waxaan idin ka codsanayaa inaad muuqaalkan si share garaysan waa mahadsantiin